waa BBC maxaa iga galay aan uga dhageysanaysiin muujadaha ilkaha dhaadheer iyo muujadaha ilkaha gaagaaban warkii oo fisan. واي وركن او ugu doqrona halkan aan ku hayno waxa way nin Soomaaliyeed oo kala baxay naag Soomaaliyeed kaliyaha waraysi waxa la yeelan doona wargeena shunk ee sharaf kale abaa oo oglaan iyo wararkii aan ugu barteen hawada sare doontii oo la isku doodooday la isku buuqbuuqay in Soomaaliyeed oo sanbus laga dafay abaa waa kan wargeena shunk ee sharaf leh aad iyo aad baad u mahadsan tahay muddo hadan waxaan u sii gudbaynaa Cabdikuus oo waraysi la yeelanay gabadha kala baxay kilida oo ku gatay xaga cagaf waa sida tan salaamu calaykum Cabdikuus وعليكم السلام Cabdikuus maxaa ku kalifay inaa kala baxday kilida gabadha ku galatay xaga cagaf horta alaaba badanay uu kalifay tan ugu horeysay uu kaliftay waxa waaye danta i geesti gaaja ya hayso beerta waxaan ku fashmay gacmeema ku falana an laaga u baana laagta u baana waa inaan ku gatay naagta kilida aan ka sii waxaan soo gatay miifaanta ee wadaago inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un maxamadka waxa laga bixin naxdinta bismillaahir rahmaanir rahiim ma banacaysan miya maya waa i geestan ku sheegay dantay markaan ku sheegtay ad maxaa waxa ay sheegay Soomaalida ma jiraan hadda gabadh hadday dirsaa tahay i kan kilidan ka siiba beesaaga bixiyaaba baan kaasna wuxuu ahaa oli oglo wareysanay ninka naagta kilida ka siibtay haddana waxa ugu gudbaynaa qaybtii ma aragtay dooda waryaheena Yonis wareysahay baan waa kana marka ugu horeyso Yonis sida la socotid Somaliland maaha dawlad madax banaan maaha ama mataqaana dawlad la aqoonsan yahay maanta Soomaaliya maaha mana aha micnaheedu in mataqaana aan Somaliland si taas aan u taagana laakiin waa faktiga jira weeye abaa kaasna wuxuu ahaa laqanyo oo u jawaabay Somalilandka aqadka waxaan ku haynaa ina qowdhan oo asagna u jawaabay ninkii hadlay laqanyo waa kana wari areeday magayga waxa weeye ina qowdhan taw ina ka boode tanag loo waan halkan ka sheegayaa loohyada isugu yimaadeen raaxa maraawiga qurumada gudhayaasha duliyaanta dad maaha sababtoo ah annaga oo dawlada oo meel ka madax banaan ayay rabaan waddankeena inay maaragta calanka hoos u dhigaan balaaya lagu dhaaday dhif ku baxa ambaa kaasna wuxuu ahaa ina qowdhan carabta la yus muruqa gelin haddana waxaan gudbaynaa harbandhar oo noo fadhiya magaaladaasi Bombay India. Thank you my friend the situation in Somalia is very very tough my friend. I think they're totally confusing my friend, every day fighting, killing each other. I study about a group in Somalia in while ago when I am in India. Right now I have a friend, Somali friends. He's next to me right now. We drinking coffee together. Every day he want to talk about tribes. So my friend, maybe you can talk to him. Hey, waxa la yiraahdaa ina dhabar weyne marka qabiilkaan ahayna waa reer alwaax hooyadeena waa reer musmaar dadka waa iska keenay marka ninkaan hindiga friend baan ahay friend virus baa afka ka helay marka afka laga loo mooga markuu hadlahayo. And thank you. Come again, brother. My friend, this guy is very totally wrong, my friend. So thank you very much. I like Somali people. I wish one day Somali peace. Abang kaasna wuxuu ahaa harbandar iyo oligii Soomaaliga joogeen dhabarka la xanuunay caawane alaase ku egtaa BBC-deena qaybtii koowaad